بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمدا مسلم كأه سوماليات iyo dadka reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug Puntland iyo Galmudug qaasatan reer Galkacyo walaalayaal waxaan rabaa halkan inaan idinkaga diro fariin magaaladan Galkacyo ama gobolka Mudug uma baahna colaad sokeeye dabcan Galkacyo waxa ogtihiin inay soo martay colaad ahli ah dad badan ay nooga dhinteen bulshada ay qaxday maanta 2025 anagoo marayna in galbeedkii Mudug dad walaala ah ehel ah xidid ah Soomaali ah wax walba wada ah inay isku leynayaan arintaas ka dhalinyaro ahaan runtii aad baan uga xunnahay waxaanu bulshada u sheegaynaa reer Galkacyo ama gobolka Mudug dhamaantood Galkacyo bataatan colaad ma qaadi karto waxaan aad uga xumahay in 2025 dib haatan waxa weeyaan iyadoo dadka bulshada ay hugan yihiin kaar qabiil ama busto qabiil ama jakad qabiil iyagoo hugan yihiin in baraha bulshada isku marinayaan dhila colaadeed arintaas waxaan leeyahay dhalinyaro laga digtoonaado Galkacyo dhibaato badan baa laga soo maray colaada qax baa laga soo maray barakac baa laga soo maray hanti naf lagu waaya laga soo maray maanta inaan u sacabatoono dad walaala ah ehel ah raxim ah wax walba ah arinta ma qaadan kareen dhalinyarada waxaan leeyahay ka tagtoonaada nin walba dhalinyaro maanta baraha bulshada fariin colaada diraya ugu meel baad noogu qoran tahay bulshadana waa nooga takooran tahay inta ka bacdi waxay u baahan tahay colaada ka jirta galbeedka in si fiican loo darso waxaan rabaa inaan fariin u diro golaha wasiirada Puntland iyo Galmudugba walaalayaal waxaa moodaa in aad ka macaashaysaan ama macaash ka raadinaysaan safaradan aad u soo galeysaan u sii galeysaan Galkacyo waxaad nooga dhigteen inaad u safraysaan seminar oo aad kaliya qiimeynaysaan safarada aad galeysaan waxaan kala garsaari laanahay inaad ku jirtaan safar dalxiis iyo inaad ku jirtaan safar nabadeed tiro ka 10 jeer Galkacyo oo u sii safraysaa waan ka sii safraysaan walaalayaal uma baahna Galkacyo inaad u sii safartaan oo ka sii safartaan Galkacyo waxay u baahan tahay ama gobolka Mudug wuxuu u baahan yahay xal dhab ah waxaan ogeyn kal hore inaan jiicboor ciidamo la geeyay oo nabad ilaalin ah qodobooyin la qortay oo waxa weeyaan wada hadalkan uu sii socdo xagee ku dambeeyay ciidanka xagga ageyseen oo nabad ilaalinta ah xagee buu ku dambeeyay waxaan ogeyn inaad geyseen maana haddana waxaan maqalnay inaad kala baxdeen maan bulshadana lamiina wadaagin ciidankaas farsamada iyo qaabka ay ku baxeen marka waxaan moodaa in halkaas uu ku jiro macaash inuu ku jiro waxaa la rabaa inaad bulshada u cadeysaan shalay waad soo gasheen shir jiraa'id baa qabateen qodobaad soo saarteen muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore aad qabanayseen oo u sii safrayseen soo safrayseen muxuu kaga duwan yahay ma garan dabcan wuxuu kaga duwan yahay bulshadani uma baahna in macaash laga raadiyo laga shaqeystay wuxuu u baahan yahay in maskaxda inta la toojiyo xal dhab loo keeno dadka walaalaha ah ilaa saaxaqur ilaa jiicboor ku dagaalamaya uma baahna in media qodobooyin loo mariyo oo yiraahdo nabadda laga shaqeeyo ciidamada geelal uma baahna waxay u baahan yihiin xal dhab ah in mataqaan laga gaaro arinta marka odayaasha dhaqankana waxaan ka rabnaa war walaalayaal gacmaha mataqaan ha isdhaafsanine waxaan ka hadla oo culimada ka hadasho oo dhaqanka ka hadlo arinta jiicboor ilaa meegaagta ilaa saaxaqur si dhab ah loo darso haddii ay tahay arintiinuna in macaash laga raadinayo runtii bulshada aan fahmayso waana idii jeedaa waana soo jeednaa waa mahadsantihiin